الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده أما بعد سورة هذا ولا لياشا قلبك برتن برتو لشيء وحنو هدي الله أود لي إذ مكسي وضنينا سيرة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام marka koobaad aan idiin bishaareeyo meesha aad joogto hadda aad fadhida eed iga daawanaysa adoo jooga fadhiya haddii aad hal mar nebiga sallallahu calayhi wasallam ku saliso waxaa imaanaya malag qaadaya salinta ama salaantaas aad nebiga sallallahu alayhi wasallam u dirtay ugu geynaya qabriga nafta lagu soo celinaya waxaana loo sheegayaa hebel hebel oo halkaas jooga ayaa kugu soo saliyey allahu akbar nebiga sallallahu alayhi wasallam hal mar kaliyaata oo aad dhahdo waxaa lagu dhaafayaa 10 dembi waxaa lagu qorayaa 10 xasano ilaahayna 10 jeer ayuu ku naxariisanaya allahu akbar aynu ku salina nebiga markasta oo aynu magaciisa maqalno calayhi afdalu salaatu wassalaam waxaynu ku joojinay bay ahayd qaybtii ka horeysay nebiga sallallahu alayhi wasallam oo la isku dayay ina la dilo abi talibna markaa uu qorshe dejiyey lagu ilaalinayo nebiga calayhi salaatu wassalaam lagagana ilaalinayo cadowgiisa iyo gaaladan soo weeraraysa ee rabta in ay nebiga sallallahu alayhi wasallam ka takhalusaan nebiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay ayaa ilaashanaya adiga abi talib uu qorsheeyey oo dhallinyaradii qayba meel buuraha hoostooda buuraha korkooda qayba meel ayuu kala geeyey wuxuu ku dhahay maxamed ilaaliya maxamedna sallallahu alayhi wasallam waxaa mataqaanaayey uu usoo bixi jiray keliyaata inuu kacbada kusoo tukado calayhi salaatu wassalaam adiga waxaa markaasi bilaabmatay intay qorayshi ay magaranaysaa shireen in la cunaqabatay nebigii sallallahu alayhi wasallam go'doomintii aynu kaga soo sheekaynay qaybtii labaad ee siirada anigii kaga soo sheekaynay go'doomintii sidii loo go'doomiyey iyo qisadaas inteedii badneed halkaas ayaan kaga soo sheekaynay adiga ugu dambeyntii 3 sano markii nebigii asxaabtu go'doonsanaayeen nebigana sallallahu alayhi wasallam wax aayado qur'aan uu kusoo degaya aysan jirin aanan ka ahayn fasbir innal caaqibata lilmuttaqiin sabir ciribta dambe waxay u sugnaatay kuwa alle ka cabsade subxaan allah ilaahay nebiga wuxuu barayaa tathbiit inuu magaranaysaa sugnaado isagii iyo asxaabtiisuba ay sugnaadaan oo ay ku sugnaadaan xaqa waayo guusha waxaa la gaadhaa kadib markaad sabirto ee aad sugnaato subxaan allah adiga go'doomintii sidii lagaga qaadayna waxay ahayd waatii warqadii ay intay qorayshi qortay ay go'aankii dejisteen ahaa in la go'doomiye nebiga sallallahu alayhi wasallam waa kuwii kacbada ku xidhay abi talibna waa kii nebigu sallallahu alayhi wasallam u sheegay jibriil baa nebigu u yimaaday sallallahu alayhi wasallam oo u sheegay inuu abi talib in warqadii ay qorayshiyeen kacbada kusoo xidheen ee ay ku qornayd in nebigii asxaabtiisa la go'doomiyo uu dhulku cunay subxaan allah dhulku waxa weeyaan ciidanka ilaahay ayuu ka mid yahay dhulku subxaan allah abi talib markuu usoo sheegay nebigu arrintaas iyagoo qorayshi ma garanaysaa yaabtay oo dhalade ma garanaysaa dadkan waa dadkiinii qaarkood ay leeyihiin halla iska daayo hanala cunana hanala cabaan diintoodana iska haystaan maxaa loo takooraya maxaa loo cuno qadatayn qaarna ay leeyihiin lagama qaadayo maye halkoodaas ha joogaan oo dhibtaas ha maraan ilaa ay diinta kaga soo noqonayaan iyagoo sidaa lasku haysto ayuu abi talib u yimaaday nimankii reer qureysheed ee kacbada ku shirayey deetana wuxuu ku yidhi nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yidhi inankii walaalkay dhalay wuxuu ii sheegay in warqadii aad kacbada geliseen ee ay ku qornayd in la go'doomiyo maxamed iyo inta rumaysay uu dhulku cunay wuxuu ii sheegay maxamed oona weligii been ii sheegin in warqadaas ay ciidu cuntay allahu akbar intii xaqa ahaydna ay reebtay yani inta xaqa waa warqad dheer ay ahayd oo ma garanaysaa qorshayaal badan ay ku qornayd qorshayaashaasoo dhan dhulka ayaa cunay inta ay ku qornayd warqadda inta ay ku bilaabanayso warqadda waxay ku bilaabeen markay qorayeen baa la dhahay bismika allahumma intaas keliyata ayaynan ciidu cunin allahu akbar markii arrintii loo sheegay arrintiina soo ogaaday inay soo xaqiiqsaday inay garteen in maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu la yimaaday xaq yahay
kadibna go'doomintii waa laga qaaday. Allahu akbar. deetana markii go'doominta laga qaaday nebiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yimaaday war dhahaya Abi Talib nafti way ku soo xaadirtay oo inuu geeriyoodo ayay u badan tahay, kaalay u aad Muxammadow. Allahu akbar. nebigu sallallahu alayhi wasallam taw ayuu soo dhahay, wuu yimaaday adeerkii Abi Talib, uu soo ag fadhiistay, wuxuu ku dhahay adeerkayow hal arrin keliyaata, hal erey keliyaata ii dheh. markaasuu dhahay sheeg, maxaan kuu dhahaa? 10 ii sheeg buu ku dhahay, 10 erey anaa kuu dhahaye ii sheeg. markaasaa wuxuu dhahay Abi Talib, nebigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhahay qul laa ilaaha ila allah, dheh laa ilaaha ila allah. markaasuu dhahay ama haada fala, taas ma dhahayo, wax kale ii sheeg. idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun, marka lagu dhaho war laa ilaaha ila allah dhaha, marka lagu dhaho way iskibrin jireen. subxaana allah. qul laa ilaaha ila allah, may tan ma dhahayo, wax kale ii sheeg Muxammadow. abujahlna halkan u fadhiyayo, markaasuu leeyahay ma diintii aabbayaasha baad ka noqoni adoo gabooweyntaa soo leekaaday, khaatimo xumaad ku dhimani, inta ugu dambaysay naftu kaaga sii bixi. halkan uu ka soo cabeynaya isagiina. subxaana allah. wuxuu dhahay may millata abi cabdulmutalib ayaan ku dhimanayaa buu dhahay. adiga sidii ayay naftu kaga baxday. nebiguna uu ku soo celceliyo horta ku laa ilaaha illa allah, ilaahay aan maalinta qiyaame magaranaysaa kula doodo, ereygaas iidhe uu diiday, adiga gaalnimuuna ku dhintay ugu dambeyntii. allahu akbar. nebigu sala allahu alayhi wasalam isagoo ooyaya ayuu soo baxay. kadib cali ibn abi talib oo aabihii weeyaan, cali aabihii weeyaan ka dhintay, cali oo bannaanka taagnaa ayaa nebigu sallallahu alayhi wasallam uu ooyaya ayuu arkay. kadib uu yimaaday, nebigu hab siiyey. wuxuu ku leeyahy nebiga oohintiisii maradiisii oo dhan bay qoysay. subxaana allah. uu ooyayey. kadib baa aniga waxaan u malaynay inuu laa ilaaha ila allah aabbahay dhahay buu dhahay, laakiin markaan ogaaday inuuna dhihin laa ilaaha ila allah, aniga laftarkayga oohintii ayaan ku daray buu dhahay. yaa laytahu qaala laa ilaaha ila allah, aniga oo leh. subxaana allah. nebiga oo leh sal allahu alayhi wasalam markaan maqlay kadib ayuu leeyahay ayaan ogaaday inuunan aabbahay ashahaadanin. allahu akbar. adiga waxa dhacday kadibna murugo ayaa halkaas nebiga sal allahu alayhi wasalam kula soo daristay. ilaahay ayuu istikfaar weydiiyey adeerkii, kadibna alle uu ka diiday in uu adeerkii magaranaysaay oo gaal ah istikfaar ilaahay u weydiiyo. wuxuuna ka ogolaaday inuu u shafeeco qaado, shafeecadaas oo ah inaan naarta laga khafiifiyo Abi Talib maalinta qiyaamaha. oo waxaa la dhahay waxaa loo xidhayaa kabo naar ka samaysan, yacni waa qofka ugu naarta cadaabka fudud maalinta qiyaame, Abi Talib. oo nebiga sal ly slam ayaa uga shafeeco qaaday inaan naarta weyn lagu tuuro, kabahaasaa loo xidhayaayo halkaa dhakada ayay dhaq ka dhahaysa naartu. magaranaysaay naar kule jidhkaaga cididaada yar haddii dab uu taabto dee jidhkao dhan baa ku xanuunaya soo maaha. marka naar sahal ma aha. subxaana allah. adiga nebigu sal alla alay wasalam isagoo murugeysan ayaa gurigiisii uu kusoo noqday. khadiija ayaa timaaday oo mataqaanaa alaab usoo sida, magaranaysaa cunto iyo wax soo sida timaaday. hab ayuu siiyey nebigu sala allahu alayhi wasalam. eeg 25 sano ayay isqabaan khadiija iyo nebigu sala allahu alayhi wasalam, haddana markay is arkaan hab ayay isa siinayaan, way isdhunkanayaan. subxaana allah. waa jacaylkii adduunka magaranaysaay ugu xaqiiqsanaa, ugu real love ma maqli jirteen? waa kii dhabta ahaa, jacaylkii dhabta ahaa. jacaylka maanta jira waa maxay? 4 sano 3 sano marka la isqabo waa wejiga la isku bedelanaya, waa la iska rahayaa, waa la isnacaya, waa la iska badbadanaya. subxaana allah. jacaylka nebigii caaisha khadiijana wuxuu ahaa mid marka kasii dambeeya sii ziyaadaya. allahu akbar. allahu akbar. marba marka ka dambeeya ayuu sii ziyaadayaa. markuu habsiiyey nebigu sal alla alayh wasalam, khadiija ayaa ay guriga iyadu hore usii gashay. kadibna jibriil baa soo degay calayhi salaam. waa markii ugu horeysay ee jibriil dhulka kusoo dego isagoo nebiga sal alla alay wasalam u imaanaya, qur'aanna u wadin. markii ugu horeysay qur'aan isagoonan wadin uu jibriil kusoo degay nebiga sal alla alayh wasalam weeyaan. wuu yimaaday, wuxuu ku dhahay yaa muxamed, allah rabbulciza
ayaa soo salaamaya khadiija ee iga gaadhsiiyey ilaahay wuxuu igu dhahay khadiija iga gaadhsiiyey salaan subxaan allah waa ayo qofka salaanta laga soo gaadhsiinaya وقف بقى هبل بقى سلامي هبل كي عنكا هبل كي فنانكا هبل كي مدحوينها بقى سلامي هدي ما أنت الوضوها والله واد فرحة سكورا الله رب السماوات والأرض والله عركني يقول كان أبوري والله عديقك أبوري والله وحكست أبوري سبحان الله بضها بورها وحكست أبوري والله النبي أبوري صلى الله عليه وسلم والله آدم أبوري جنكي إنسي أبوري أيا وحليه خديجة يوصلان الله أكبر آوي قبله مسلمين تها آوي هوينكي مسلمين تها آوي هويوينكي مسلمين تها آوي واتن وهويدن وخديجة وهويدن مركان ليه داد بدن آيا قلد أفسرنيا الله وحا أوليه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هويوينكي ويان هبلي هوينكي النبي وقبي أوردن إنك هويوين أي نويهين هدي أينو نهي مؤمنين أما مسلمين دمانبا وهويوين كان خديجة وهويدن نبي صلى الله عليه وسلم خديجة يوي ما دوحو كدهي إلهي أياكو سو سلامي يا خديجة مركاسي تري ايك جوابتو قرح ببدني ديبتي سبحان الله معورتو كرسو دهي جبريل نبي وحو كدهي إلهي بسو سلامي يا خديجة قارسي سلامتاس أنيغانا إيغا قارسي سلام الله أكبر أنيغو جبريل أهنا إيغا قارسي سلام مركو النبي قوي ماذا خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكلها الله أياك صو سلامي يا خديجة الله أياك صو سلامي يا إيك جوابت قرح بدني بحسي وحي تري الله هو السلام ومنه السلام إلهي سقاب السلام نبض إساقينا نبض مقرني سدنكي سكا هاتي أو أي نوغا سقناتي سبحان الله مركو كلها جبريل نوك صو سلامي أنا وحي تري عليه السلام جبريلنا كركيسا صلانها أهاتو الله أكبر سيدا قرح بدني أقول جوابتي إيك وحاو كلو كدا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أقول بشارة قصر كيالا جنة أو كسميسن قصب وحالا داما قرنيسا قصب وحويا بورها واد قرنيسا صوما قلت كيالا كهفي يعني ماشو النبي صلى الله عليه وسلم قلي أو كلا غار ميلهاس أو كلا مقرنيسا بوري ساو دير أو قصري انتاس لغو وين أو إنبا عادي هين يعني أو كيالا جنة ugu bishaaray ayuu alla leeyahay subhanahu jalla jalaalu waxaba umu qataabay inuu alla leeyahay subhanallah khadiija waa daashay nabiga sallallahu alayhi wasallam lixdii bilood riyooyinka kaliya ta arkay intoona nabi noqon u imaanin jibriil lixdii bilood markuu qaar xiraa oo aaday inta cunto u kariso ayaad buurta iyo dhagaxaanta fuuli jirtay oo aad tacbi jirtay oo aad daali jirtay oo qaarka ugu tagi jirtay oo u geyn jirtay cunto oo niyada u soo dejin jirtay subhanallah markii uu jibriil u yimaaday adiga ayaa ma garanaysay go'iisa huwiyay adiga ayaa ma garanaysay dajiyay adiga ayaa sabir ku dhahay adiga ayaa habsiiyay adiga ayaa dhunkaday adiga ayaa ma garanaysay niyada u dhisay adiga ayaa dhiiri geliyay ya khadiija adiga ayuu ahaa qofkii warqabta ibnu nawfal u geeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam ya khadiija adiga ayuu ahaa qofkii nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu horeeyay rumeeyay dadkoo dhan intiina rumeynin ka hor qofkii kow rumeeyay adiga ayuu ahaa ilaahay oo saa kula khadiija ay u muuqataa waxaad u dhiman doontaa khadiijay siraaxale ayaad u dhiman doontaa khadiijay jannadana waad geli doontaa si aayar oo dhalatay oo inaan cidina ka hor istaagaynin allahu akbar sidaas ay u muuqataa sababtoo alle muxuu leeyahay inna alladhina qaluu rabbuna allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان الله كورده الله يقول ربك يقول الله كدبنا توصنادي كنت توصنادي أرجع أيدهن تتنزل عليهم الملائكة ملائكة أي كسر دقيسة مركا أيدمنيان يجو كورده يا عبس دوشينا مصارنا ورنا دوشينا مصارنا سبحان الله كنا بشارة الجنة دي ليدين يباهي سبحان الله إنه إلهي ساكل يا خديجة
ayay u muuqataa uu ku leeyahay khadiijay adiga waxa kuu sugnaatay guul aad u weyn. allahu akbar. khadiija waxay gaadhay markii ay dhiman lahayd ayaa soo dhowaatay. subxaan allah. waxaa soo dhowaatay xilligii ay dhiman lahayd, kadibna way xanuunsatay. da'deedu waa 65 sano. 65 sano ayay jirtaa khadiija markaas. subxaan allah. khadiija halkay ku dhimatay? dhabta nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay ku dhimatay. nebiguna halkuu ku dhintay? dhabta caaisha radia allahu canha ayuu ku dhintay. allahu akbar. ay quruxda taariikhda nebigeena sala allahu calayhi wasalam. khadiija dhabtiisa isagoo ku hurda dhabta nebiga iyadoo ku hurda ayaa ay tiri yaa muxamed, naftaa kasii baxaysa, yaa muxamed wallaahi laa yukhziika allahu abada. wallaahi weligaa ilaahay kuma guul daraynayo, kuma magaranaysaayay dulaynayo muxamedow. subxaan allah. saasay kusii leedahay iyadoo sii dhimanaysa. wallaahi xaasaska muslimiinta ah waxaa la rabaa in ay ku daydaan hooyadeen khadiija, in ay ku daydaan oo ay waddadeedii raacaan, oo ay taariikhdeedii akhriyaan, oo ay nimankooda sidaas oo kale ula dhaqmaan. wallaahi sida nebiga oo kale naag weligee intay khadiija nooleyd naag kale lamuna guursanin nebigu sala allahu calayhi wasalam. waayo jacaylka uu ka helay iyo daryeelka uu ka helay iyo magaranaysaayee dhaqanka uu kala kulmay ayaa ka badnaa 20, 50, 100 kumaakum naagood. subxaan allah keligeed. allahu akbar. khadiija jacaylka uu ka helay, nolosha uu ka helay, la dhaqanka uu ka helay ayaa magaranaysaa mid wax loo dhigo aanan ahayn. subxaan allah. allahu akbar. nebiga dhabtiisa iyadoo ku hurda bay kusii leedahay weliba oo naftu kasii baxayso. wallaahi lan yukhziika allahu abada. wallaahi ilaahay weligaa kuma hoojinayo muxamedow. allahu akbar. kadibna nafta ayaa ka baxday khadiija radia allahu tacaala canha. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu ooyey, wuu murugooday. mar dhoweedunbay ahayd markuu adeerkii soo aasay, haddana xaaskiisii baa dhimatay. wuu ooyey nebigu sala allahu calayhi wasalam. aad ayuu u murugooday nebigu sala allahu calayhi wasalam. kadibna asxaabtii ayaa waxay ku dhaheen bas nebigii ilaahayow bas. subxaan allah. markaasuu ku dhahay maxaad ii aamusiinaysaan? waa khadiija, waa qoftii i rumaysay markay dadkoo dhan i beeniyeen. waa qofkii i aamintay markay dadkoo dhan i aamini waayeen. waa qofkii i garab istaagtay marka ay cid kale i garab istaagi weyday. innahaa khadiijatun wakafaa ayuu dhahay sala allahu calayhi wasalam. kadibna asxaabtu dhammaantood way wada ooyeen iyagoo oo dhahaya maxaan ugu dhahnay nebiga sala allahu calayhi wasalam bas, iyagoo ereyga ka qoomamaynaya. subxaan allah. kadibna khadiija sidaas ayay ku geeriyootay iyo adeerkood. sanadkaasna waxaa loo bixiyey caamulxusn. ilaahayna xikmad ayuu ka wataa. abi aalib wuxuu ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam bannaanka dhibaatooyinka kaga imaanaysa qofkii ka ilaalinayay. khadiijana waxay ahayd dhibaatooyinka gudaha iyo guriga iyo magaranaysaa gudaha qofkii magaranaysaa dhabarka iyadu u dhiganaysay ee ka ilaalinaysay. labadoodiiba ilaahay uu oofsaday. xikmad ayuu ilaahay ka wataa. xikmadda uu ilaahay ka wataa maxay tahay? muxamedow annaga ayaa ku abuurnay, insigu wuu dhimanayaa, ha tala saaranin. watawakkal cala alxayi aladii laa yamuut alladii yaraaka xiina taquum wataqallubaka fi الsaajidiin. allahu akbar. annagana tala saaro muxamedow, bini aadan ha tala saaranin. anigiyo adiga haddii ay gacanteenna ku jiri lahayd geerida ama nolosha khadiije iyo abi aalib, waxaynu dhihi lahayn soo maaha ha dhintaan. kadib nebigu sal allahu alayh wasalam marka uu guulaysto, marka uu madiine aado, marka uu dowlad islaama dhiso, marka uu maka furto, markay guushu isgaadho, markaas ha geeriyoodaan baynu dhihi lahayn soo maaha. laakiin alla xikmad kale ayuu ka wataayo wuxuu leeyahay
محمدو إنسانكو إنتو دونها نولادو ودمانيا أنغا نتلسارو أنغا ناندمانينين أنغا هالكم لغما ودا جمع إلهي وحويان كبر كيسا إلهي وينيديسا كبرياء إلهي سبحانه وتعالى ويان أنغا وحووده إنا نحن نزلنا إنا أنزلنا إنا محو إلهي وإلهي جمع ماها إلهي وكلي لكن سويني ديسا إيا عظم ديسا أوجد أيو مقرني ساي جمع إلهي اسكوت الماما إساقو أو كلي الله أكبر كدبنا إلهي وحا إلهي أننا نتلصار محمدو أننا نتلصار بلي آدن هتلصارنين وايا ويدمان يعني الله أكبر كدبنا وحا بالله متي هالكاس إنو إلهي نبي صلى الله عليه وسلم قرب استاغو وحا إيمانيا وراركي وحا اسكو فرمي أرض الحبش أصحابتي جوكتي إيو ميليه كلا لكن سنبيغا مسؤولية أيا مركن فوشي مسؤولية آد أوين أيا فوشي أو كدوان مسؤولية دي كلا يعني يضو مسؤولية نبي نما أي صارن تاي مركا خديجة نمتينا وأم العيال واكيلها مركا أصحابتو كلهن بس نبي إلهي وحكم إذا يريض الله وأم العيال هي خديجة وكفى وعيال كيغو هو يضد بكله سبحان الله واتي عائشة مركي قتل يا محمد خديجة بالله إلا ما أنت ميون الإلهي كو بدل المتك خير بدن أو أنيقا سبحان الله مركاسو قدهي مايا waxay rumaysay markay dadka oo dhan i beeniyeen waxay i magaranaysay aamintii markay dadka oo dhan i aamin waayeen waxay garab istaagtay markay dadka oo dhan iga soo horjeedsadeen wuxuuna ilaahay igaga arsaaqay khadiija wiil markuunan cid kale igaga arsaaqin subhanallah Aisha jaaway fahantay hadalka kadibna waxay tiri nabiga ilaahay dambi dhaaf ilaahay weydii markaasuu ku dhahay adigu khadiija u weydii dambi dhaaf ilaahay markaasan adigana كوي ديني يا إلهي دم بداف سبحان الله خديجة ويان خديجة رضي الله عنها وأرضاها ويدبتي كدبنا مسؤولية النبي قفوشي وحا ويان إن أفر قبضوضو دالي إساقو مسؤولية دودي وقاضو رقية يا زينب إيا قوالا قورسدي markay mid dhimatay midba marka hore uu guursaday say u kala horeeyeen ma garanay midba marka hore guursaday Uthman kadibna way dhimatay kadibna midii kale ayaa la siiyay ruqiya ayaa dambeysay baan filayaa marka labadaas waa la qabay bay ahayd oo midna way geeriyootay midna way nooleed markii dambe waxa kale oo sii nooleed Fatima iyo Kalthun Fatimana marka waxay jirtay 14 sano ay hooyadeed dhimatay Allahu akbar مسؤوليتنا ساس النبي صلى الله عليه وسلم دبرك ugu ritay kadibna noloshu halkii ay ka sii socotay insha Allah tabaaraka wa ta'ala qaybtan xigtana waxaanu ka sii wadan doonaa bartaas hadii Allah inoo ogolaado naftana inugu simo waxa inoo bilowday hadda sanadadii aadka u quruxda badnaa ayaa soo socda markuu nabigu hijroon doonay ayaa soo socota waxa soo socda fatxu Makka ayaa soo socota waxaana ugu dambeynta aan ku soo gabagabayn doonaa siirada muuqaal aad u muruga badan oo ka ooysiin doona oo geeridii xabiibka alayhi salaatu wassalaam ilaahay waxaan ka baryaa inuu dambigiina iyo dambigayga dhaafo dambiga waalidiinteena dhaafo dambiga muslimiinta oo dhan dhaafo inta nool iyo inta dhimatayba allahumma aamin hore u socda ku saliya nabiga xilligay idin tahay oo barakaysan nuuriyo nuurkii dunida ifiyo naxariis nabad korkaagii ahaatay